gudoomiyaha maamulka gobolkan Shabeellada Dhexe Axmed Meere Makaraan ayaa maamulayaasha iyo macallimiinta iskuulada gobolkan ugu baaqay inay garab qabtaan caruurta danta yar aan iska bixi karin lacagaha iskuulka. waxaana uu sheegay in maamulka gobolka ay kaalintooda ka qaadan doonaan isla markaana macallimiinta iyo maamulayaasha iskuulka looga baahan yahay inay kaalintooda ka qaataan. waad ogtiin gobolkan saddexdan degmo oo webiga la teedo oo dhanka webiga la jeedo fasal kasta markay dadka ay rabaan inay wax soo dalag soo goostaan biyo ayaa gooy dadka marka waxay ku jiraan duruuftaas adag waa wax Ilaahay keenay Ilaahay ayaana naga qaadi karo laakiin waxaan rabnaa macallimiinta inay isku naqdaan maanta waxa aad helayso waa adduunyo iyo nolosha lagu maareeyaa bari aakhirana in wax la helo in wax loo shaqeysto in laga shaqeeyo ayaan jeclaalahay haddii iskuulkan ay dhigtaan ka soo qaad 300 haday dhigtaan waa inay 150 free ay oo boowareeta oo dadka danyarta inay ku dhex jiraan 100kaas iyo 50kaas mujtamaca waxa way faa'iido u soo kortay naqaaya oo la yiraahdo qofka waalidka buugga iyo soo gado dharka maartay in uniformka u soo gado soonadir daraasaadna lagu sameeyo ayna ku gaman qof awoodi karta maanta inay macallinka ama iskuulka fiidiisa bixiso qof awoodi kare inuu dan arintaas ku hoos gaman laakiin dadkan la soo ogaado inay yihiin dad aan waxaas bixi karin annaga marka hadii aan kaliya aan naqano qofka wax heli karo iyo anigoo wax u baahan hawshayna haday ku koobanto waxay naqaysaa inay dadkii kaleento oo kaalmada u baahnay oo in la garab qabto u baahnay oo inaan rabnay inaan ayaga soo kicino u baahnay inaan ka tagna ayay naqaysaa oo intii wax heli karto iyo intii wax maartay taqiino qofkaas maartay wax baraysi kaliya isla socoto halaha kalena meeshooda iska rogaano inaan dhahnay naqaysaa marka arrinkaas waxaan jeclaalahay baada waxbarashada inay dib isugu laabtaan waqtiina waa ka baxa energy-na waa ka baxa halaha hadlaysid 10 qofood oo dadkaas danyarta inay ayaguna faa'iidaas ay wax kamid ay ka helaan dadkaasi waa dadka mustaqbalka anfici doono ummadda ayay naqahayaan waxay naqahayaan dadka og in abaal loo soo gala dadka og oo maarta ayagoo waxbarashada awoodin ayaga iyo waalidiintood garabka laga soo qabtay dadka ogaa doona ayay naqahayaan laakiin annaga hadaanan ihsaan isu sameyn ee kaliya aan raadina waxa dantayna kaliya waxa u maleeyahay inaan horumar lagu gaarin waxa aan horumarka ku gaarayno inaan isgarab qabano keena danta yar waxbarashada xaggeeda haduu ku dan yaryahay in lagu garab qabto hadii uu ku dan yaryahay xagga nolosha in la garab qabto dhinkastoo ku dan yaryahay waxa looga rooyay in lagu garab qabto ayaa u maleeyahay in horumar lagu gaaray Abuukar Ali Cadaabe Abuukar Yare warbaahinta City magaalada Jowhar.